wanaagsan oo aan meel walba aad joogtaan iyo si walba oo aad nolol socotaan sida aad u jeedaan halkan waxa lagu soo dhaweynayaa alfanaan dalmar oo halkan u yimid ka qaybgalka xaflad weyn oo ka dhici doonta magaalada Nairobi alfanaan dalmar waxa isugu yimid dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed si ay u soo dhaweeyaan haddaba qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay munaasabada ayaan kelmado siin doonaa kadibna haddii Ilaahay yiraahdo fanaanka ayaa inoogu xigi doona ama u dambeyn doona marka hore waxaan ka bilaabi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Haji Gool oo ah afhayeenka jaaliyadda iyo dadkii qaban qaabinayay munaasabada uu yimid alfanaan dalmar Haji Gool soo dhow عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ugu horeyn waxaan aad ugu hambaleynayaa dhammaan dadweynaha aadka u quruxda badan ee sharafta leh ee dhinacyada taagan
iyagoo ka soo qayb galay soo dhoweynta xafladda mukhtaar maxamed cali oo ku magac dheer dalmaryare oo ah fanaan qaran oo markaasi nooga yimid waddankaasi Mareykanka aad baan ugu horeyn marka hore aan u salaamaya anigoo ku hadlaya codka jaaliyadda beesha waxaan jecelahay in markaasi aan ku soo dhaweyno gacmo furan waxaan leenahay soo dhawow jaaliyadii oo halkan waxa weeye dhinaca taagan oo dhammaan waxa weeye ku heelan dalmaryare ku soo dhawaan ku leenahay garoonka weyn ee Jomo Kenyatta International Airport soo dhawaan ku leenahay aad baa bahsatiin gudoomiyaha ayaa isaguna waxa weeye dhinacayga jooga duni madaxa qabanqaabada jaaliyaddu waxa weeye xagga yar istaag soo jeedso maxamed cabdiyare waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii ka shaqaysay munaasabadan ee ka shaqaynaysay ilaa munaasabada xafladda soo dhawow dareenkaaga uu idin yimid dalmar waa mahadsantahay dhammaantiin waa mahadsantiin aniga mar walba waxaan jeclahay markaan saan oo kale mikrofon lagu dhiibo waxaan rabaa sacabkii walaalkeen dalmar alfanaan dalmaryare hal sacab oo dirandi maxaa ku dhacay intaas ka bacdi waxaad u jeedaan jawiga caawada gabdhaha quruxda badan wiilasha quruxda badan sida looga soo qayb galay wariyaasha YouTube-leyda innaba lama qiyaasi karo farxadeena marka waxaan leenahay walaalkeen dalmaryare soo dhawow baan mar labaad iyo mar koobaad mar saddexaad ku leenahay wayahay gudoomiyaha jaaliyadda ayaan u dhiibayaa gudoomiye Bashiir Macalin Cumar soo dhawow gudoomiye caawa dareenkaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarta sharafta leh oo ka soo qayb gashay soo dhaweynta aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen soo dhaweynta mukhtaar maxamed cali dalmaryare anigu waxaan ku hadlayaa afka odayaasha oday baan matalayaa marka waxa weeye anigoo afka odayaasha ku hadlaya wixii fanaanimada iyo dhalinyarada matalasay marka anigoo dhinaca odayaashan matalayaa marka soo dhawow dalmar aad iyo aad baa u mahadsantahay soo dhawow thank you aad buu mahadsan yahay gudoomiye Bashiir waxaan siinayaa dhinaca fanaaniinta Bashiir Jaawi soo dhawow caawa dareenkaaga abtiga waad garabkiisa taagan tahay fanaankaagii soo dhawow aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaan leenahay abti macaane ku soo dhawow magaaladaadii dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow waxaan oo dhalinyar ah oo boqolaal ama kumanaan aan dhaho waxay isugu soo baxeen sharafta iyo ciziga iyo karaamada aad wadato darteeda iskugu soo baxeen aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa soo dhawow abti macaane thank you Bashir aad mahadsan Salmaan Boqor only legend Salmaan Boqor nooma Isa Cabisaan hortaniyo خير الله ينسي midda kale cawdo ku soo dhaweynayna arti soo dhawow Nairobi ku soo dhawow waxaan leeyahay dad baa qamiisi soo xirtay waa aragtaa Soomaa waxay taageen alla baryan ku jirnay walaalkeen dambiga Allah ka dhaqo dambiga laga dhaqo marka waxaan leenahay walaalkeen dalmar soo dhawow kaleelaad waa shidanahay sanadkan waxaan xalfad lama dhigi karo ay fartuunay kaalde fartuun soo dhawow kaale daqiiqada ka hor inta uusan dalmar imanin waxaad sheegtay waxa uu ku yahay dalmar muxuu ku yahay habaryar uu yahay اوكي سو هاور سما عادي حلا نيروبي كسو دو كليلاب ماي براذر ذا ون اند اونلي ليجند معاني مدني معاني داس maxay jirta هذا كوربا ninkan aanu dugsi dhiganayna dhageysan jirin maanta wara so ya marka xilligii dugsiga haysta dhageysan jirnay kulli dad baa dhii doona waa weynaateen oo barigaas ciyalka xaafada iska heen my brother dalmar soo dhawo waxayaan hadal ugu weyneed ma sha Allah wala isku gaada marka wayahay Salmaan Boqor aad u mahadsan tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa haatana Fartuun Cabdulqaadir Xasan Fartuun Karayto dad badan aysan aqoonin magacaas inkastoo inta badan laga yaabo Fartuun Karayto inaad maqasheen Fartuun soo dhawow caawa dareenkaaga adigoo u hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed ee soo dhaweynaya walaalkeen dalmar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاوة هبينك اللي إيتهاي مركز تونين أبتيجي يعني وفق عمر شيكتو ونيرو عجها صوديجا يعني هبينك اللي إيتهاي مع هذا الله أبتي دلمر ولا بجر أو بحس كنا مروائي أبتي مرنوا الميجا ذيركوت ورما قليل قناعي
إذا فقع عمر يا شيخ شعول أمدا أنا إجابتي على ذي يا كودا لا يعدو علمي يدين أنا ما الله وعنها كودا وعنها نوجي معي يضلطه يا ذي ووعد كي غير بيرو عيد لا أمدي عسيس الله يقوم من يستوعد لا أمسي الله بارك يدك وانك جار أنا يا دري هذا فقع عمر يا شيخ شدوا لدا أنا قابتي يا خالد وكدير صدا داينك جاب غير ما هتبانو دوريا دتكان غير عن دوت نوابلا الله يهدي غيستوى دولة ما أعبنا ويدلا يهو كوي دايدا يهو نبتودا كوي كرشي دلي أجرو دتكاس وحيس غيرني ما كان البهودا أنا قابتي يا خالدي وابندور صدا إلهو أبتي يا خالدي إيقادور عدا أبتي وحالي أبتي معانا ويلكم وينو حفلة إن شاء الله برينا أبتضيح حسود ويننا وينو بريت دوسعي هل كان يبتضيح إن شاء الله وياي فرتونا ما صنتهاي dadku waxay wada jecel yihiin Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu horeyn waad salaamaya aad baad u maasantiin waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed dhamaantood meel walba joogan gaar ahaan reer Nairobi iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday walaalkeen Abwengeesi oo hadda geeriis halkan lagu sheegay daqiiqad ka hor oo aad uga xumahay Allah u naxariisto inta ka sokow waan idin wada mahad celinaya walaaladey sida quruxda badan ee sharafta la soo dhaweyseen mar walba ay garab taagantiin aad baan idin wada mahad celinaya saad sheegteen xaflad baa inoo soo socota insha Allah taala meeshaas aan kala war qaadan doonaa dhamaantiin hal iyo wada jirba waan idin wada mahad celinaya gabdhaha quruxda badan wiilasha quruxda badan aad baad u mahadsantihiin ana walaal shaqaal